hadduu dhex geli lahaa reer bahash maxaa reer ceerigaabo siidibay tufeene dee reer burco way yaqaanaan budka iyo dhagaxna way yaqaanaan iyo tooride magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaa maanta ka dhacay mudaharaadyo waaweyn kaasi oo lagaga soo horjeedo inuu yimaado magaalada burco madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka qayb galaya qalinjabinta jaamacadda burco sidoo kale waxaa isaguna magaalada burco ku sugan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe isagoo markaasi gudoomiyuhu ka qayb galay qalinjabinta jaamacadda Alfa oo maanta markaasi burco ku qalinjabinaysay gudoomiyaha waxaan wax ka weydiiyay waa uu joogaa magaalada burco mudaharaad weyn baa ka dhacay bal gudoomiye marka hore soo dhawow si toos ah khadka telefoonka ugu jirtaa siday maanta wax u dhaceen wallahi maanta nasiib u lahay madaxweynuhu dee magaalada muu dhex gelinaa wuxuu ku leexday halkii magaalada saaye madaxtooyada dadka waxa lagu hor joogay magaalada saaye bridge-kii hore ayaa lagu hor joogay markaa saas uu nasiib batay hadduu dhex geli lahaa reer bahash maxaa reer ceerigaabo siidibay tufeene dee reer burco way yaqaanaan budka iyo dhagaxna way yaqaanaan iyo tooride nasiib uu lahaa markaanu maanta jecleen in fact maanta in lagu mudaharado ma jecleen oo wuxuu sitaa wuxuu yimi inuu dhalinyarada ka farxiyo oo kala qayb galo jaamacadda burco laakiin de waxay tani ku tusaan madaxweynuhu aanu dalkii qaybiyey u qaybsanay dalkii waa arkiisa dee qoytana waa laga dabaaldegiyey burcana waa laga mudaharaadiyey waa arkiisa boorama looma soo bixin dadkii reer awdo ma soo bixin odayaashii waxa uu socday shaqaalihii halkana waxaa socday shaqaalihii ilaa waxaa socday gudoomiyaashii magaalada saaye diijiyadii iska dhaafay head of departmentkii ayaa socday dowladda oo dhan baa socotay wallahi aad iyo aad baa uga xumahay muuse inuu dalkii maanta uu geliyey jawi xun oo magaalada cunfi uu geliyey ama waan ka tacsiyaday wallahi waan aad iyo aad uga xumahay in maanta lagu mudaharado kuma faraxsaneen hadduu kaambeynganay hadii lagu kaambeyn laakiin wuxuu yimi jaamacad buu yimi in la daayabe waayo gudoomiye dad badan baa aaminsan amaba oran doona in maadaama mucaaradkii gaar ahaan gudoomiyihii bahaysiga Faysal Cali Waraabe uu joogay goobta iyaga ka ololeeyay oo abaabulay shacabka hadalka maxaad kaga jawaabi lahayd aniga la yaqaanayo waa cunfi ma abaabulo adiga ka shaqeeya la yaqaana dadka iyaga iska kacsan waan shalay tamakan u yimi ma abaabulin iyaga is abaabulin dadka iga hor yimi waxaan si yarood waxaan shakhsiyan u imanay meeshaan jaamacad ka qayb galo laakiin waxa ku tusaysaa halkan inuu maanta madaxweynuhu aanu taqad shacabka reer Soomaaliland aanu ku haysan inta aamusan xishoonaysa ka badan magaalada saaya ka badan laakiin waa lumiyay madaxweyne Muuse wuxuu ku baxsan karaa maanta Muuse kiyo aan sharci ku soo noqda oo dhiga doorashadii madaxweynaha sharcigu sheegay historiga ahaa oo isagu soo laqimay saddex bish ku soo laqimay oo yiri ururo toosi waxay ka imanayaan distorka bishii July taas oo maanta dalku ku badbaadi kara wixii taa ka baxsan Soomaaliland waxaan leeyahay waayo waa maasanta gudoomiye gabagabadii maxay uga dhigan tahay Soomaaliland iyo shacabkeeda in madaxweynihii markii gobolada bariga adogeed burco in laga mudaharaaday ceerigaabo maxay uga dhigan tahay shacabka Soomaaliland waxa weeye waxay taqad ku haysanaa waxa wala taanta waa ka xun yihiin hogaankiisa lagu maqanacsana waxa la wuxuu soo kordhiyay Muuse ma jiro intuu meesha qabtay muran iyo islam caashi iyo dadka ismacay oo wuxuu ku cuqdad iyo dadka kale dhex dhigay qabiil ku salaysan oo ku salaysan magaalada ideology qabiilnima ah ayaa institutionalized noqotay magaca ilaahay noo saaray subhanahu wa ta'ala ilaahay noo saaray aad baad u mahadsan tahay laakiin maanta ma ahayn maanta ardayb u yimid lagu mudaharado mehenad ma ku xumaan aan ka tacsiyeynaya aad baad u mahadsan tahay midna gudoomiye Faysal Cali Waraabe waa mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe oo ku sugan magaalada Burco Faysal ayaa ka qayb galay qalinjabinta jaamacadda Alfa waxaana maanta waraysi telefishinka caalamiga Samniis uu ku siinayay Burco isagoo khadka telefoonka ku jira uu ka waramay xaaladda iyo sidoo kale mudaharaadyada ka socda magaalada Burco ee laga soo horjeedo madaxweyne Biixi